Yeah, teacher. Okay, what's My the first sister, Uh-huh. my sister lives in Nairobi. Her house is big. Very good. And Maulid, can you read the next question? Yes, teacher. Uh-huh. I have one brother. My brother's name is Ali. My brother's name is Ali. Because you talked about yourself, you said, I have one brother. Waxaan leeyahay hal walaal. Waxaa laga rabaa inaad dhahdo walaalkii magaciisa waa Ali. So marka lahaanshaha oo walaalkaa magaciisa waxaa leedahay my brother aa leedahay. My brother's name is Ali, okay? And Rahma, can you read the next question? Rahma, read this question. Hussein Gese, can you read? Me, This- teacher. Okay, can you read? He is a teacher. Uh-huh. He is a teacher. Your school is in Material 2. And he is a teacher. Asagu waa macallin. Schoolkiisa wuxuu ku yaalaa Montreal 2. Marka meeshan maxaa la gelinaya? His school. His school. Yes. His school. Schoolkiisa wuxuu ku yaalaa Montreal. We are students. Waxaan nahay arday. Schoolkeena waa caalami. Inaad dhahdaa laga rabaa. We are students. Waxaan nahay arday. Schoolkeenana waa caalami. Adinkaa iska hadlaysiin mogtahay. So marka maxaa la dooranaa marka inta? Our school, okay? I want to Gese to read for us the next question. Mr. Gese, can you read the next question? What's this? Yes. Read. You are a good person. We love My personality. her. My personality. And you are, adigu waxaa tahay a good person. Waxaa tahay qof fiican. We love, waxaan jecelnahay personalitygaada, shakhsi ahaantaada, macnaha dabeecadaada shakhsiyan waan jecelnahay adhiirta qof. So marka waxaa leedahay your personality, okay? Are we together? It's supposed to be yes, teacher. Your personality. Yes. Your. Ali and Aisha are from Boston. Ali iyo Aisha waxay ka soo jeedaan Boston too sidoo kale. Address is 225 Walnut and Ave. Ave waxaa laga soo Avenue. Marka there ay noqonaysaa halkan. Their address ciwaankooduna is waa 225 Walnut Ave. Avenue, okay? I am from Somalia. Name is Hassan. My name is Hassan. My name is Hassan. Okay, very good. The next question is, I have an iPhone. Waxaan leeyahay telephone. Its color is white. Its color is white. Okay. White. Colorkiisana waa cadaan. Marka ma dhihi kartid his color. Asagu colorkiisa marka dhis his waxa waa qof noolo ah. Telefonka ma noolo waayo, so it is color waa inaad dhahdaa is white, okay? Okay. So when you finish, you click next. Color, white. Yeah, it is color. I have an iPhone. It is color. Yes, It's white. correct. It is color is white. Haye waa meeshii ka wadnaa su'aaliyan sii akhrineynaa. So the next question waxa waaye, you are good student. Choose waxaad doorataa the correct answer. Jawaabta saxda ah. So marka meeshan waxaa ku taalo you dash a good student. Marka waxaan rabaa inuu ka jawaabo. You are. Yes, you are. Okay. Qofba mar waxaan rabaa inuu su'aalaha ka jawaabo, mar waxaan rabaa inuu Xuseen ka jawaabo, mar Raxmo, mar Xafso, mar Mawlid, marna Cabdiraxmaan. Are we together? Okay, teacher. Yes, teacher. The first one waxaa iska leh this one waxaan rabaa inuu ka jawaabo Xuseen Geesey. Can you read this one, Hussein Gese? What is it?
What's the correct answer here? They dash from Somalia. They dash from Somalia. So what are we supposed to put here? They, Uh-huh. these are. They are, okay? They are. They waxay qaadataa are. She dash a doctor. Iyadu waa dhakhtarad. Waxaan rabaa inuu ka jawaabo qofka xigo oo Raxma ah. Raxma ka jawaab. She, which is a doctor. Ka jawaab. She is a doctor, okay? She is a doctor. Marka he a businessman. Waxaan rabaa qofka xigo inuu ka jawaabo oo ah Xafsa Cabdiraxmaan. He is a businessman. He is a businessman. Very good. Qofka xigo waxa waaye Mawlid Xaaji. Waxaa ka jawaabaysaa we dash all builders. We dash all builders. What's the next answer here? We are waaye. Sidoo sheegay Mawlid waa we are all builders. The next question waxaa ka imaatay waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan. Qofkii u qoran tahay Cabdiraxmaan. Maqalkiisa mikrofoonka ka hadlaysan Cabdiraxmaan. Marka waxaa ka jawaabi doono oo soo bilaabaya su'aasha Xuseen Geesay haddana mar labaad. Dash, we dash from Kenya. We are from Ethiopia. Cabdiraxmaan Geesay ka jawaab. We dash from Kenya. We are from Ethiopia. We are. We are miyalle. Xabsi isku day. We are not. Yes, we from are. Kenya. We aren't, yes, we aren't from Kenya. Marka waa midda horeeto waxay noqotay negative diidmo. Midda labaad haddaa ku aragto su'aasha inay positive tahay, macnaheedu waxaa waaye tan hore waa soo jeednay, ma nihin Kenya kama soo jeedno. Waxaan ka soo jeednaa Ethiopia meesha ku qoran. Marka waxaa laga rabaa inaad diidmo ka dhigto oo are not ah, aren't. Hussein waa fahanti soo maha? We aren't from Kenya, kama soo jeedno Kenya. We are from Ethiopia. Yes. He is a nurse. She is a nurse. Ayadu waa dhaq. She is meesha is ma taalo. She dash a nurse. She is a doctor. Marka tan la dhahay waa she is a doctor. Midda marka hadday positive noqoto, midda kale waxaa laga rabaa inay noqoto negative didmo. Negative. So waxaan rabaa inuu ka jawaabo Raxma. Can you try Raxma? Yes. She isn't a nurse. She is a doctor. Isn't. Yes, she isn't a nurse. Ayadu ma ahan kalkaaliso. She is a doctor. Waa dhaqtarad. Okay. And the next question waxaa laga rabaa inuu ka jawaabo qof cusub oo soo gala ujeeda Manaal. Manaal su'aasha ayaa la akhrinayaa, su'aalihii ayaa laga jawaabayaa. Su'aashan ka jawaab. What is the answer? Akhri kana jawaab. Manaal way aamustay. Waxaan rabaa inuu ka jawaabo. Xabsa ka jawaab. Yeah, I'm not. He is not from UK. He is from USA. Very correct. He is not from UK. Kama soo jeeda UK. He is from USA. Midana positive ah. Midda ka horeysa waa inay diidma noqotaa. Okay. Negative. Okay. Okay. So and the next kan waxaa laga rabaa inuu ka jawaabo Manaal. I think marka inaad maqli kartid. Marka hore waa maqli weysay. So are you ready? Yeah. I want you to read this question and give us the correct answer. You are not a good person. You are a bad person. Okay, very good. That's very good. And the next question is for Abdirrahman. Is not having correct microphone. You cannot speak. The next one is supposed to answer by Rahma. Rahma, can you answer? It is my laptop. Yes. It is my laptop. Okay, very correct. Istaas waxay la mid tahay it is. Fuulkeeda waxay noqon kartaa is waa isku mid dabadooda. So the next one waxay noqon doontaa qaybta dhegeysiga. Test your listening skills. Choose the answer based on what you hear. And tijaabi dhegeysigaaga, xirfadda dhegeysigaaga. Tijaabi
choose the answer dooro jawaabta ayadoo ku dhisan waxaad maqashay su'aalku macnaha waxaad maqashay un dooro marka meeshan dadka dhan ma wada aqriyeen meesha markasta waxaa lagu dhahay akhri questionka si kadibna ka jawaab adoona aqrin haddaad isku daydo inaad ka jawaabto waa misgaraynaysaa so click the link below to listen the audio ku dhufo linkiga hoose si aad u dhageysatid maqalka markaad dhegeysataa su'aalaha ka jawaabi kartaa waa macnaheeda so you click the link okay after you click the link you hear you try to listen and then after that you give us the correct answers okay so now we are waiting for the link and then the questions will be answered by Hussein Gesey and Rahma and Hafsa okay the three questions sasa loo kala qaybsaday Hussein Gesey question 1 Rahma question 2 Hafsa question 3 okay. Are we together? Are you ready now? Yes, teacher. Yes. Hello, how are you? 1. Hello, my name's Anna. What's your name? My name's Mario. maxaa maqashay Gesey 2. qaybta hore saasay ku dhamaatay su'aasheeda saas waay what did you hear after listening the audio at part 1 maxaad maqashay markii aad dhageysatay qaybta koowaad ee listeningka so marka waxaad mid kasta marka fuulkeeda waaye wixii aad maqashay qaybta 1 markii ay bilaabanayso wixii aad maqashaa sheegaysaa okay mar kale miyaan kugu celiyaa mise waa ka jawaabi kartaa Hello. hello Miyay maqashiin? waan ku maqalnaa ka jawaab Hi, hello, my full name is Anna. waa kugu celinaa Gesey dhegeysaya Hello, waa How kugu are celinaa you? waa kugu celinaa Hi. 1. Hello, my name's Anna. What's your name? My name's Mario. ay maxaa maqashay hadda Hello. Waa maqal ha. ay ii sheeg answer Hello, how are you? See tahay waay. haye kaad gudubtaas haye maxaa maqashay qaybta ku xigta 1 markuu dhahayo bilaabaysaa maqalka 1 kaas aad ka jawaabaysaa kadib haye teacher khadka aga go'ay adigoo xaalaya meeshan hal ifaansiyo marka horena xabada khalday yani waxa la maqlay hal ifaansiyo okay waxaa lagu dhahay test your listening skills tijaabi dhegeysigaaga saa wax u dhegeysatid oo wax u maqashid su'aash jawaabta waxaad dooranaysaa markii aad dhegeysatid kadib waxaa lagu dhahay ku dhufo linkiga hoose si aad u dhegeysato maqalka soo linkiga ku dhufanaysaa linkigan markaa ku dhufato wuxuu ku keenayaa meeshan dhegeysiga ay ku qoran tahay oo wixii aad dhegeysaysaa kusoo baxayso kadib markaad dhegeysato waxaa ku qoran what did you hear after listening the audio at part 1 marka 1 markuu dhahayo maxaa maqashay statementigaasaa lagaa rabaa inaad sheegto okay 1. Hello, my name's Anna. What's your name? My name's Mario. Hello. hello ii sheeg maxaa maqashay Malay maqlaa? Wuxuu yiri hello, 1 markay tiri hello, my name's Anna ay tiri. What's your name? My name is Mario. My name is Mario. Very correct. So that's the answer. The next waxaa laga rabaa inuu qofkii hadayta aan u sheegay inuu ka jawaabayo inuu kasoo jawaabo Raxma waa u malaynaa Raxma listeningkan daara dhegeyso 2. Max, this is Carla. Hi, Carla. Hello, Max. Nice to meet you. ay maxaa maqashay
أستاذ علي. Anna, what's your name? My name's Mario. 2. Max, this is Carla. Hi, Carla. Hello, Max. Nice to meet you. marka lam ku soo celiyaa My name's Anna. What's your name? My name's Mario. 2. مع عطف قوي. Max, this is Carla. عطف قوي. hadda makaa ku go'a weli hadda ma maqli kartaa codkayga caadiga okay codka kaleetana ma maqli karto soo maa هذا عطف سؤال. Hi, Carla. Hello, Max. Nice to meet you. Hello. My name's Anna. What's your name? My name's Mario. 2. Max, this is Carla. Hi, Carla. Hello, Max. Nice to meet you. Max, this is Carla. Hi, Carla. Hello, Max. Nice to meet you. Intaas ma maqash? Ha, yes, one way, teacher, one. Number 1 why, okay? Hafsa, this is your question. What did you hear after listening the audio at part 3? 3 markuu dhahayo laga rabaa wixii aad maqashay kuwii hore iska dhaaf. 3 markuu dhahayo adana laga rabaa. Okay. 3. Hi, Ada. How are you? Qofaa soo galay interruption ku sameeyey. Marka I will play it again, okay? Teacher, waan ka jawaabaya. Aye ka jawaab. Jawaabtada waa Hi, Ada. How are you? Thanks, David. And you? Yeah, this is the answer. That was the answer supposed to be the correct answer, okay? So you click submit. Dadka qaar Yes. submit-ka way garan waayeen. Submit ina laga gudbi waa submit-ka. Then view score halkan ayaad ka fiiri kartaa wixii aad heshay. Score-kaaga halkaas ayaad ka arki kartaa oo view score-ka ah. Page-ka ayuu kugu tuurayaa marka kadib aad arki karaysaa. Okay? So most of the students ma aysan sameynin inta badan waxaan ka rabaa inay excess kala haddaan soo diro in serious meesha waxaa ku qoran 17/18 so anaka ka jawaabayna hal xabaa gafnay halkaas xabaa lagu laabto aduna qalad waa looga jawaabay which one is the correct answer here hal xabaa la qalday I don't know why halkaas xabaa lagu laabto that one so inta laga rabay Soomaa is not ana meel qaldan doortay okay jawaabta saxda qofkan wuu isiiyey xabsiyeed he is not from UK okay I'm not ma noqon karto he is not from UK aniga gacanta iga dhacday so marka next time exercise waxaan rabaa ardayda inay ka shaqeeyaan otherwise cashirkii meeshuu noo maraya ayaan kasii wadanaynaa I hope you had a good weekend. How was your weekend? Can someone tell us where did you go? What did you do? Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Yes. Good, very good. If you had a good weekend, that's wonderful, okay? So okay. So our lesson today is, you remember where we stopped? That's where we will continue from.
I think we did the simple present. So we have done this part. We did this one too. So we talk about what people do and where they work. Ka hadal waxa ay dadka sameeyaan iyo meesha ay ka shaqeeyaan. Okay. Where do they work? Xagee bay ka shaqeeyaan? Can you see the lesson first? Yes, I see teacher. Yes. Where do they work? Xagee bay ka shaqeeyaan? Jim iyo Monica wada hadlay waxay leedahay what do you do Monica? What do you do? Monica maxaad samaysaa? I think qaybtan waa sameynay. This part we have done last lesson. This is where we're supposed to continue from, right? That is the point we will continue from. That one we have done last week. So what do you do? Maxaad samaysaa? Read email. Waxaan aqriyaa emailada. Read books. Waxaan aqriyaa bugaagta. Read magazines. Waxaan aqriyaa journaalada. Read newspapers. Waxaan aqriyaa wargeysyada. Write email. Waxaan qoraa emailada. Write reports. Waxaan qoraa reportyada. Write memos. Waxaan qoraa. Memo waa waraaqada company weyn ama shirkad weyn markii ay rabto inay la xiriirto si internally ah shaqaalaheeda waraaqad waxaa jirto ama fariin memo la dhaho oo shaqaalaha dhan loo wada qorayo aa jirto. Marka that's what we call memo. Qof walba shaqaalaha kamid ah shirkadda uu soo helaa. Ama shirkadda waxay sameynaysaa macnaha pay rise dadka mishaarka loo kordhiyay ama maalin kala fasaxa jirto ama waxbaa jiro waraaqad marka waxaa jiro loo wada diraa dadka dhan. Memos aan lahaa. Haddaa iskuul joogtid iskuul ardayda macallimiinta wax dhan loo wada diraayo hal waraaqad oo loo qaybinaa memos aan lahaa. Waxaa laga soo gaabiyey memorandum. Marka letters, I read letters waxaan aqriyaa waraaqaha. I meet clients waxaan la kulmaa macaamiisha. Meet clients. Meet with clients waxaan la kulmaa macaamiisha. Meet with workers waxaan la kulmaa dadkaas la wada shaqeyno. Meet with my boss waxaan la kulmaa bosska iyo qofka shaqaaleysiiyey. Use a computer waxaan isticmaalaa computerka. Use a cell phone waxaan isticmaalaa telefonkeyga gacanta. Use the internet waxaan isticmaalaa internetka. So marka su-aasha haddii lagu weydiiyo waxaa lagu dhihi karaa what do you do at the weekends? Maxaad samaysaa weekendyada? Or what do you do during your free time? Maxaad qabataa waqtigaaga fasaxa? Marka waxaa dhihi karta I read books. I read newspapers. I meet with friends. I meet with clients. I use my cell phone. I use the internet. Intaas dhan waa su'aalo aad kaga jawaabi kartid, okay? So marka waxaad jirto marka degreega ama inta macnaha macnaha sidaa wax u samaysid masaa'ida u samaysaa mar kasta maa samaysaa mar dhifaa maa samaysaa erey loo isticmaalaa jiro. I always read email. Mar kasta waan aqriyaa emailada. Okay? I never write reports. Maba qoraba reportyada. I sometimes meet with clients. Sometimes waa erey loo isticmaalo mararka qaarkood markii waxaa samaysid ay tahay. I sometimes meet with clients. Mararka qaarkood ayaan la kulmaa macaamiisha. I usually use a computer. Sida caadiga ahba computer ayaan isticmaalaa. Mar kastana ma aha waa sida caadiga ah inta badan u noqon kartaa. Okay. On the phone we have the clerk waxaa la qofka xafiiska shaqeeyo. Callana waa qofka soo wactamayo. So labadaas qof ayaa wada sheekeysanayo. So good afternoon, galab wanaagsan. Marka Peachtree Computer Surface. Marka galab wanaagsan halkani waa Peachtree Computer Surface adoo dhahay waa. Meesha aad ka shaqeynayso magaceeda waa inaad sheegtaa. Meesha oo qofka soo wacay ama adiga xafiiska u fadhisid oo shaqaalaha waxaa leedahay galab wanaagsan xarunta dahabshiil. Galab wanaagsan Hormuud Telecom. Galab wanaagsan meesha xafiiska carwo hebel meesha la soo wacaa sheegaysa, okay? So marka good afternoon Peach Computer Surface, can I help you? Yes, do you sell laptops? Yes, we do. Great. What are your hours? What are your hours? We are open from 9 to 6. What's your address? 6210 Main Street. Thanks a lot. Bye. Good afternoon, Peachtree Computer Surface. Can I help you? Galab wanaagsan waa Peachtree Computer Surface.
muku caawin karaa yes do you sell laptops miyaad gadiin laptopyo yes we do waan gadnaa great what are your hours waa maxay saacadihiinu macnaha waa maxay saacadihiinu macnaha waxay ka dhigan tahay waa maxay saacadaha aad shaqaysiin ama aad furan tihiin we are open from 9 to 6 waxaan furannahay laga soo bilaabo 3 saac ilaa 12 ama waxaan furannahay 9 ama ilaa 6 hadba qofka soo u yaqaano what's your address waa maxay ciwaankaaga waa maxay ciwaankiina waa 6210 main street waa 6210 main street wadada weynta ciwaankaas uu sheegay thanks a lot waad mahadsantahay bye maca salaama okay so you must know how telefonka loogu hadlo markii lagu soo wacdid mail okay we sell on laptop marka ka gudub waxaan macno malahan so you check here chapter check alaha exercise kan isku day say where you work waxaad sheegtaa meesha aad ka shaqaysid okay marka waxaa leedahay su-aasha koowaad waa inaad ka qortid what company do you work for maybe qof aa weydiinaysaa what do you do maxaad qabataa haddii aad meel ka shaqaysid waxaa leedahay I work for that company I do that job waxaa qabataa sheegaysaa if I am a marketer I'm a manager I am a cleaner I am a nurse I'm a doctor I am a waxaa qabataa sheegaysaa meesha ka shaqaysid describe your office waxaad sharaxdaa xafiiskaaga wax ku saabsan so marka xafiiska soonkan maahana waxaa qori kartaa where's my pen waa inaad ka jawaabtaa penkaaga meesha uu yaala it's under the table where are my pencils meesha yaalaan where are the printers printerka yaalo waa inaad ka jawaabi kartid talk about what people do at work ka hadal waxa ay dadka shaqooyinkooda ay qabtaan shaqooyinka ay dadka qabtaan what do you read maxaad akhrisaa what do you write maxaa qortaa what do you meet who do you meet yaad la kulantaa what do you use maxaad se isticmaashaa okay those are the questions la rabo in laga jawaabo before chapter 4 na u gudbin waxaan rabnaa inaan cashirka inta ku keeno so next lesson chapter 4 kan ayaan bilaabeynaa wax su'aalaha ma jiraan any question Teacher, pencils, yeah where are my pencils? Teacher, pencils waa qalin qori pencils qalin qoriyaal teacher yes waxaa geysaa meesha kow soo bilaabaysaa hal su'aalaan ka qabaa taas hiya intaa ka bilaabna sax what meesha wargeyska haa intay ahayd meesha wargeyska korma u laabtaa ku jiro korma u laabtaa maya inta waa markii la dhaho what do you do read email books ereygan oo wargeyska ah magazine la dhahay majayna dadaa dhahay see camal magazines taas waa ma dhihi karaa majanis hadhihin magazines loogu dhawaaqa dhawaaqiisa saxda majanis ma noqonayso let me show you dhawaaqiisa saxda aan ku dhegeysiin okay maybe majanis ma aqaano college ma maqlin weli meesha write email reports memos letters maxaa waaye letters waraaqo okay waa fahmay magazines co-workers maxay teacher co-workers waa dadka isla shaqaysiin co-workers shaqaalaha isla shaqaysiin mid ka koreysana Seletins mid ka koreyso co-workers mid ka koreyso Seletins midda ka koreyso co-workerska waxay noqonaysaa clients aa lagu dhawaaqa clients macaamiil clients macaamiil clients macaamiil teacher conversation kan telephone kal margiyo waan sawiran rabaa oraale ay
conversationka waxaa waaye ogey ugu tiri ereyada qaarkood waxaa rabaa in la akhrinayo lala socdo hala dhegeysto clients waaye co-workers my boss waxaas dhan video waa soo diri doonaa halala socdo hal mar ereyadaas macallin hal mar noogu celi fiida ereyadaas hal mar noogu celi adoo raali email hal mar noogu celi okay meeshan readka waxay ku qoran tahay adaa lagaa raba pronoun inaad gelisid I read aad dhigi kartaa we read aad dhigi kartaa soo marka waxay noqonaysaa I read email ay meesha kuma jirto laakiin adaa gashay kartid what do you do aa lagu dhahaa mogtahay books magazines newspapers pronunciation kada laga rabaa magazines newspapers email reports memos letters meet with clients meet with co-workers meet with my boss use a computer use a cell phone use the internet okay magazine ma maqli kartaa qofkii magazine i weydiinay magazine can you hear magazine magazine waya magazine okay magazine aldin waa maqlay so cashirka caawa halkaasuu noogu egyahay insha allah habeen dambe waxaan bilaabaynaa chapter 4 oo boogan then boogan ilaa chapter 5 ka akhrinina book kale waxaa jira isagana chapter 4 looga tegay oo la sii wadi doono hadduu ilaahay idmo insha allah labada book ba hal mar aan rabaa inaan wada dhammayno okay tiija boogan mana soo dir kartaa asoo pdf ka si elementary ugu soo dirtay asoo pdf mana soo dir wuu yaalaa kanoo pdf wuu yaalaa waa soo diri ma arkin groupka waan ugu horeeyaa maana fartay soo dirtay saa ugu soo dir maar groupka ku dhufo marka ku dhufato waxa tagtaa documents meesha documents docs tag ama links docs ka dhex arkay kan waay sama meesha docs ka tag groupka waa ka dhex arkay inshallah Can I ask you a question? Yes. Another exercise مقصود ديري كرتا. Yeah. مقصود ديري سا. Exercise كله. Exercise كله وصدريا weekend كان صدريا. أي. إن شاء الله. Goodbye. Goodbye.